lahaa runta markii uu si shil ah uga dhacay jaranjarooyinka taasoo keentay inuu si xun u dhaawacmo oo ku jiro xaalad koma. Somi ayaa ka soo kabsatay arrintaas oo u dhaqaaqday inay hubiso xaaladiisa macadda. Si dhaqso ah ayay u wacday caawimaad. Markii ay ogaatay inay kaliya yihiin laba qof oo guriga jooga ayay Namjan ayaa u sheegtay Somi inay si degdeg ah uga tagto goobta oo ay abuurto alibi. Somi ayaa si degdeg ah u dhaqaaqday laakiin walaasheed oo ku sugan Lajiman ayaa nasiib u yeelatay inay soo laabato oo ay aragto Somi oo baxaysa. Gudoomiyaha Kong ayaa si dhaqso ah loo helay oo loo qaaday isbitaalka. Inkasta oo aanay khatar ku ahayn noloshiisa haddana wuxuu lahaa dhiig bax culus oo maskaxda ah. Goorta uu soo toosi doono ma cadda markii Somi ay timid isbitaalka Jiman ayaa weydiisay haddii ay guriga joogtay waqtigaas. Somi oo si wanaagsan isu diyaarsatay ayaa siisay alibikeeda. Heyman ayaa xanaaqay isagoo canaantay walaashii sababta oo ah eedeymo aan sal lahayn. Laakiin markii Jiman guriga soo laabatay waxay nasiib u yeelatay inay aragto badhanka hoose ee jaranjarooyinka. Waxay u dhaqaaqday qolka Somi oo waxay isbarbar dhigtay mid ka mid ah shaatiyada Somi. Jiman waxay hubtay in Somi ay ku lug lahayd shilka aabaheed. Si degdeg ah ayay u sheegtay Heyman laakiin Heyman wuxuu u malaynayay inay caadi tahay in badhan laga helo guriga. Wuxuu Jiman ku wargeliyay inay joojiso eedeymaha aan saxda ahayn ee Somi. Iyadoo aan wax kale oo door ah lahayn Jiman waxay arrinta u sheegtay hooyadeed. Inkasta oo xaaskii gudoomiyaha ay aaminsanayd shakiyaasha gabadheeda haddana ma aysan awoodin inay gaarto gabagabo iyada oo aan caddayn. Habeenkaas haweeney ayaa timid qolka isbitaalka. Waxay ahayd xaaska gudoomiyaha Kong waxayna lahaayeen wiil yar oo la yiraahdo Sang Min had iyo jeer wuxuu la noolaa qoyska Kong. Jiritaanka Sang Min had iyo jeer wuxuu ka dhigay xaaska gudoomiyaha mid aan raaxo lahayn. Waxay ka baqday inuu qaato dhaxalka wiilkeeda. Dhanka kale Somi waxay sii waday qorshihii cadaalad raadinta. Habeenkaas waxay iska dhigatay inay niyad xun tahay oo ay la cabtay Heyman iyadoo qalbigeeda furan. Tani waxay ahayd markii ugu horeysay ee ay kaligood ku wada jiraan tan iyo markii ay guursadeen. Somi waxay fursadan u isticmaashay inay isku diyaariso marxaladda xigta ee cadaalad raadinta. Maalintii xigtay xaaskii gudoomiyaha ayaa si xoog leh u gashay oo waxay aragtay lamaanaha oo si dhow u jiifa sariirta. Waxay ku tuurtay baaldi biyo qabow ah. Waxay ku qaylisay Somi inay tahay mid aan xishood lahayn. Waxay ogolaansho siisay shuruudaha laakiin ma aysan raacin. Jiman ayaa markaa soo gashay iyadoo wata baaldi kale oo biyo ah. Heyman ma uusan qaadi karin dhaqankooda xun mar dambe wuxuuna labada ka tuuray dibadda. Jiman ayaa Sugi u sheegtay arrintaas. Markii ay ogaatay in lamaanaha ay wada seexdeen. Sugi waxay dareentay khatar. Waxay u dhaqaaqday guriga Kong waxayna burburisay sawirka arooska hortooda Somi. Waxay been sheegtay oo sheegtay inay uur leedahay wiilka Heyman oo ay ku dhali doonto gurigan. Heyman iyo xaaskii gudoomiyaha ayaa si degdeg ah u dhaqaaqay markii ay maqleen buuqa. Sababo la xiriira ganacsi soconaya oo la leh madaxweyne Hyun xaaskii gudoomiyaha waxay dhinac la gashay Sugi. Ilaa uu ka helayo dhaxalka weyn ee Somi Heyman wuxuu u baahday Sugi si ay u caawiso stabilinta shirkadda. Sidaas darteed ma uusan sharaxin wax. Somi oo halkaas joogtay si ay u hesho cadaalad ma aysan danaynin inay ku dagaalanto arrimahaas. Maalin maalmaha ka mid ah Somi ayaa mar kale la kulantay Sion si ula kac ah ayay u dhex gashay isaga iyo Heyman iyadoo tiri waxay ka baratay Heyman in Sion aanu saaxiibo lahayn intii uu korayay oo uu godoonsanaa. Heyman kaliya wuxuu saaxiib la noqday isaga sababo la xiriira naxariis. Sion oo iskiis ku faanaya ayaa xanaaqay markii uu ogaaday in Heyman uu ka hadlay xun isaga. Gadaashiisa wuxuu ku gubtay cadho. inay midba midka kale ka hor keento oo isku dirto markii ay qorshaheeda gaadhay Somi waxay u tagtay Haman waxay u sheegtay in aabihii lacag badan u wareejiyay naagtiisa qarsoon mistresska isla markaana uu saamiyo shirkada siiyay wiilka naagtaas Haman aad buu u argagaxay markii uu maqlay warka Somi waxay ku tidhi hawalwelin marka ay iyadu dhaxalkeeda hesho waxay ka caawin doontaa Haman aad buu ugu mahadceliyay laakiin intay dhunkan lahaayeen ayay si lama filaan ah Suji u soo gashay waxay soo saartay sawiro muujinaya Somi oo la kulmaysa Sion waxay hore u dirtay qof Somi daba socda tani waxay ka caraysiisay Haman wuxuu Suji ku yiri inay joojiso waxyaalaha nacasnimada ah wuxuuna sheegay inuu xaaskiisa ka aaminsan yahay qof kasta kadib Haman wuxuu raadiyay Sion oo ku maagay isagoo u sheegay inuu ka fogaado Somi Sion uu fahmay waxa uu ula jeedo wuxuuna ku jawaabay in Haman uusan kalsooni lahayn haddii uu xitaa xaaskiisa basaaso sidaas ayay labadoodu cadow u noqdeen Somi markaas waxay eegtay sawirada waalidkeed waxayna xasuusatay noloshii farxadda lahayd ee ay hore u lahaayeen waxay ku dhaaratay inay cadowgeeda ka dhigto inay la kulmaan xanuun ka daran kan iyadu soo martay kadib waxay aaday qolka isbitaalka ee Chairman Kang waxay si toos ah ugu sheegtay inay rajaynayso inuu dhaqso u soo kaco si ay argoosi uga qaadato laakiin si lama filaan ah ayuu Chairman Kang indhaha u furay wuxuuna qoorta ka qabtay Somi kadib markii ay la halgantay ayay ugu dambayn ka riixday intaas kadib xaaska gudoomiyaha ayaa qolka soo gashay markii Somi dib u jeesatay Chairman Kang mar kale si degan ayuu u jiifay sidii qof miyir la nasiib wanaag waxay ahayd oo kaliya daqiiqad gaaban oo uu miyir helay Somi way ka carartay qolka iyadoo wareersan oo garan la waxa ay samayso markaas ayuu Namjoon yimid oo gacanta qabtay wuxuuna si walaac leh u weydiiyey waxa dhacay markii uu maqlay in Chairman Kang soo toosay Namjoon wuxuu Somi ku booriyey inay sida ugu dhaqsaha badan uga baxdo guriga kan iyagoo hadlayay ayuu Namjoon arkay wax aan caadi ahayn wuxuu Somi ku yiri hajeesan qof baa daawanaya qofka daawanaya wuxuu ahaa Suji waxay muuqaalka kamarada u dirtay Haman oo xanaaqsan ayaa si degdeg ah u yimid isbitaalka laakiin wuxuu arkay ilaaladii oo Namjoon dibadda u saaraya Somi waxay ku eedeynaysay Namjoon inuu dhibayo kadib way jeesatay oo iska tagtay Haman ayaa u yimid oo waardiyaasha ka joojiyay arrinta wuxuu Namjoon uga digay in haddii uu mar kale qoyska dhibo uu ka shalaayi doono noloshiisa oo dhan arrintani waxay meesha ka saartay shakigii uu Haman ka qabay Somi markii uu galay qolka isbitaalka hooyadii ayaa u sheegtay arrinta naagta qarsoon ee aabihii waxay ka shakiday in Chairman Kang lacag badan iyo saamiyo siiyey naagtaas isla markaana laga yaabo inuu dhaxalka siiyo wiilkeeda xaaska gudoomiyaha waxay ka baqday inuu si qarsoodi ah wasiyad u qoray sidaas darteed waxay soo jeedisay in loo diro isbitaal maskaxda ah si haddii ay wasiyad jirto aysan sharci u noqon iyagoo qorshayaal xun samaynaya Chairman Kang wuxuu u muuqday inuu wax maqlayo jidhkiisu si xoog leh ayuu u gariiray isagoo xanaaqsan nasiib wanaag dhakhaatiirtu waqtigii saxda ahaa ayay yimaadeen oo xaaladiisa dejiyeen hadallada hooyadiis waxay qalbiga Haman ku beerteen nacayb uu qabo aabihii wuxuu xitaa rajaynayay in aabihii mar dambe soo toosin dhanka kale Suji marar badan ayay isku dayday inay Somi dhibaato geliso laakiin mar walba way ku fashilantay halkii ay guul ka gaari lahayd Haman ayaa iyada ku canaantay ma garanayn sida ay Somi ula tacaasho maalin maalmaha ka mid ah ayay guriga timid iyadoo xanaaqsan waxayna ku qaylisay Somi Jimin iyo xaaska gudoomiyaha ayaa yimid markii ay maqleen buuqa Suji waxay ku eedeysay Somi inay iyada riixday intay baxaysay ayay ku hanjabtay in haddii wax ku dhacaan ilmaheeda uurka ku
ku jira aysan Somi ka hari doonin. Somi ma aysan isku dayin inay sharaxdo, laakiin sidoo kale ma rabin inay si aamusan u sugto masiibo. Sidaas darteed waxay samaysatay warbixin caafimaad oo been ah oo muujinaysa inay uur leedahay, waxayna si ula kac ah u siisay Haman inuu arko. Markii Haman arkay warbixintaas aad buu aad ayuu u farxay. Wuxuu isla markiiba hooyadii u sheegay warka wanaagsan, laakiin xaaska gudoomiyaha Chairmanka arrintaas kuma farxin. taas bedelkeeda waxay ku adkaysatay in Somi ay iska soo rido uurka. dhanka kale Jimin weli ma quusan. waxay si qarsoodi ah u qaadatay alaabta qurxinta ee Somi kadibna waxay siisay Suji si ay u hubiyaan aqoonsiga dhabta ah ee Somi iyagoo eegaya faraha, fingerprints iyo nooca dhiigga. tan iyo markii fadeexada dhacday Jimin waxay joojisay inay la kulanto Siho. arrintani waxay ka dhigtay Siho mid niyad jabsan. sidaas darteed wuxuu aaday Kijin wuxuuna u sheegay in gabadhii uu haystay ay dhab ahaantii tahay gabadh uu isaga iyo Jimin dhaleen. Kijin aad ayuu u burburay. xitaa Somi ayaa maqashay wada hadalkaas. waxay noqotay in gabadhii uu Kijin jeclaa 7 sano aysan ahayn gabadhiisa. Kijin ma aqbali karin xaqiiqada. wuxuu xusuustay in haddii Jimin aysan markaas u sheegin inay uur u leedahay uusan weligiis ka tagi lahayn Somi markii ay sariirta isbitaalka ku jiiftay iyadoo curyaan ah. isagoo murugo iyo qoomamo ka buuxo Kijin wuxuu aaday meeshii isaga iyo Somi hore ugu kulmi jireen. halkaas ayuu ku arkay Somi oo fadhiya iyadoo fikir ku maqan. markuu ogaaday in Somi mar hore uur u lahayd ilmahiisa wuu naxay, laakiin ilmada iyo qoomamadu ma sixi karin khaladaadkii hore. waxay u muuqdeen laba qof oo aan marna dib isu helayn. markii uu sii baaray Kijin wuxuu ogaaday in wiilkii Somi dhashay 7 sano ka hor la korsaday adopted. Somi way yaabtay sababtoo ah eedadeed Namjoon ayaa hore ugu sheegtay inay gabadh dhashay oo markiiba dhimatay. si ay runta u ogaato Somi waxay aaday eedada. eedadu iyadoo walwalsan waxay ku adkaysatay inay gabadh ahay, laakiin markii Somi baxday eedadu si degdeg ah ayay Namjoon u wacday. Namjoon wuxuu ku yiri ilmaha ku celi Somi. waxaa laga yaabaa inay ka tanaasusho argoosiga. runtu waxay noqotay in wiilka eedadu korisay Eunseok uu dhab ahaantii yahay wiilka Somi. eedadu waxay korinaysay 7 sano sidaas darteed way la qabsatay waxayna isku dayday inay qariso runta. dhanka kale Haymin iyo hooyadii waxay qorsheeyeen inay sameeyaan dardaaran wiil been abuur ah inta uu Chairman Kang Mir la yahay, laakiin markaas Sung Min ayaa wacay isagoo sheegay in aabihii soo toosay. arrin kale oo Somi ka yaabisay ayaa ahayd in Chairman Kang uusan kashifin markii uu soo toosay. taas bedelkeeda xitaa wuu ooyay hortiisa isagoo leh Somi adiga iyo Haymin isma guursan kartaan. Somi si degan ayay ugu jawaabtay inay tahay Jenny waxayna ku hanjabtay inay isbitaal maskaxeed u diri doonto haddii uu hadalkaas sii wado. maalintaas President Hyun ayaa yimi sababtoo ah xaaska Chairmanka ma aysan fulin ballamihii. waxay go'aansatay inay joojiso dhammaan iskaashigii ay la lahayd qoyska kan, laakiin Haymin arrintaas kama welwelin. wuxuu sugayay dhaxalka weyn ee Somi. si kastaba ha ahaatee dhibka degdega ah wuxuu ahaa in dardaaran been ah la sameeyo ka hor inta aabihii si buuxda u soo kabsan. markii qareenku dardaaranka been abuurka ah la baxayay Chairman Kang si lama filaan ah ayuu u hadlay wuxuuna sheegay in dardaarankaasi aanu sax ahayn, laakiin xaaskiisa arrintaas ma aysan qaadan si dhab ah. Haymin wuxuu qareenka u sheegay inuu iska tago sababtoo ah aabihii xaaladiisa hadda waxay u arkeen qof ay si fudud u maamuli karaan. markii President Hyun ay maalgelintii kala baxday shirkadda Haymin waxay gashay dhibaato dhaqaale. si uu uga hortago musalafnimo Haymin wuxuu go'aansaday inuu qaato amaah gaar ah isagoo sugaya lacagta ka imaan doonta waalidiinta korsaday ee Somi. dhanka kale Kijin wuxuu mar kale la kulmay Somi wuxuuna xaqiijiyey inay wiil dhashay. taasi waxay Somi ku noqotay naxdin weyn. markay dib u fikirto waxay xasuusatay in eedada aan weligeed guursan laakiin ay wiil leedahay. markaas ayay ka shakiday in wiilkaasi yahay keeda. Somi isla markiiba waxay aaday eedada si ay u weydiiso runta. markan eedadu ma qarin karin. waxay qiratay in Yeon Si-ek uu yahay wiilka Somi. waxay ka raali gelisay danaysigeedii, laakiin Somi arrintaas si fudud uma afin karin. haddii ay ogaan lahayd inay wiil leedahay jidka argoosigeedu wuu ka duwanaan lahaa. ugu dambayn Somi iyadoo waalan oo ooyeysa ayay dibadda u orday si ay u raadiso wiilkeeda. haweeney ayaa si lama filaan ah u ogaatay in ilmaheedii lagu sheegay inuu dhintay 7 sano ka hor uu dhab ahaantii weli nool yahay. arrintan markii ay ogaatay waxay si waali ah u bilowday inay raadiso wiilkeeda. isla waqtigaas Eunseok ayaa ka soo laabtay ciyaar. markii Somi aragtay wiilkeeda aad ayay u oyday, laakiin markii wiilka arkay eedadiis oo soo baxaysa Eunseok wuu riixay Somi oo wuxuu u cararay eedadiis si uu u dhuunto gacmaheeda. eedada ayaa Somi ka codsatay inay siiso waqti yar si aan ilmaha qalbigiisa loo dhaawicin. Somi way ogolaatay inkasta oo ay aad uga xanuunsatay. markaas Somi keligeed ayay xeebta u tagtay iyadoo xasuusanaysa dhammaan waqtiyadii ay la qaadatay Eunseok sanadihii la soo dhaafay. waxay dareentay farxad yar oo ah in ay mar walba wiilkeeda agtiisa joogtay. maalintii xigtay Somi waxay cunto u geysay Chairman Kang laakiin waxay aragtay isaga oo ku dhibtoonaya inuu fadhiisto. markaas ayuu u sheegay sir weyn. wuxuu sheegay in Somi ay tahay gabadhiisa. dabcan Somi arrintaas ma rumaysan. Chairman Kang ayaa qiirooday oo qirtay khaladaadkii uu hore u sameeyey. si kastaba ha ahaatee Somi weli ma aqbalin. waxay u carartay oo afka ka qabatay iyadoo ku qaylinaysa ma waalatay. kadib markay guriga ku noqotay Somi weli ma degin. sidaas darteed waxay tagtay isbitaalka si ay baaritaanka dibna u samayso. qalbigeeda waxaa buuxiyey dareen isku dhafan. waxay samaysay laba baaritaan, mid iyada iyo wiilkeeda Eunseok, mid iyada iyo Chairman Kang. natiijadu waxay caddaysay in Eunseok uu dhab ahaantii yahay wiilkeeda, laakiin Chairman Kang wax xiriir dhiig ah lama lahayn. waxaa soo baxday in hooyadeed ay been sheegtay oo ay u sheegtay Kang in Somi ay gabadhiisa tahay si uu u dareemo dembiga wixii uu hore u sameeyey. sidoo kale waxay rabtay inay Somi ka ilaaliso waxyeelo. dhanka kale lacagtii waalidkii korsaday ee Somi weli ma soo gaarin. Haymin aad ayuu u walwalsanaa. deymo badan ayaa soo ururay shirkaduna waxay qarka u saarnayd inay burburto. hal si uu Jimin u kasbado wuxuu ku dhiirigeliyey xaaska Chairmanka inay ku qanciso Haymin inuu dib ula heshiiyo Soji. haddii ay sidaa sameeyaan President Hyun ayaa shirkada ka badbaadin kara dhibaatada. sidoo kale wuxuu soo jeediyey qorshe kale in Somi iyo Kijin lagu eedeeyo inay xiriir qarsoodi ah leeyihiin si labadoodaba guriga looga saaro. xaaska Chairmanka isla markiiba way ogolaatay qorshahaas. kadib hadalkeeda Haymin wuxuu fahmay sida xaaladdu u halis tahay, sidaas darteed si qasab ah ayuu u ogolaaday. maalintii xigtay wuxuu la kulmay Soji wuxuuna jilba joogsaday isagoo ka baryaya inay cafiso. hadda keliya hooyadeed ayaa badbaadin karta. ugu dambayn Soji qalbigeedu wuu jilcay oo way ogolaatay. maalin kale Somi waxay heshay wicitaan telefoon. Ofe Erjoy ayaa rabay inuu la kulmo. natiijadii faraha ee Soji dalbatay ayaa soo baxday. faraha Jenny-ga hadda waxay la mid ahaayeen kuwii Somi ee la sheegay inay dhimatay 7 sano ka hor. markaas Somi waxay qirtay aqoonsigeeda dhabta. waxay sheegtay inay weli leedahay argoosi ay dhamaystirto. Ofe Erjoy wuxuu ogaa qayb ka mid ah sheekada, sidaas darteed dhib badan uma geysan. Somi waxay siisay lacag ay hore u diyaarsatay. kadib markii uu qaatay Ofe Erjoy wuxuu ballan qaaday inuu
sirteeda qarin doono si ay ugu mahad celiso President Hyun oo shirkadda badbaadinaya xaaska chairmanka waxay diyaarisay casho qoys markii Somi guriga timid oo ay weydiisay sababta kulanka Haemin wuxuu isku dayay inuu sharaxo laakiin waa la joojiyay Somi ma rabin inay u naxariisato waxay xasuusisay in gurigan hadda ku qoran yahay magaceeda waxay tiri waxay u ogolaan karto inay si bilaash ah u isticmaalaan si ay casho ugu cunaan hadalkaas ayaa ka dilay rabitaankii cuntada ee qof walba Somi ma rabin in shirkadda qoyska Kang ay dib u soo noolaato waxay rabtay inay qalalaasa geliso qoyska oo dhan sidaas darteed Somi waxay soo saartay natiijada baaritaanka danaga markii chairman Kang ogaaday in Somi aysan ahayn gabadhiisa dhabta ah aad ayuu u xanaaqay wuxuu dareemay in la khiyaamay cado darteed wuxuu qabtay dharka Somi isagoo isku dayaya inuu waxyeeleeyo laakiin tani waxay ahayd qorshaha Somi waxay si xoog ah u qaylisay si ay qof u soo jiidato xaaska chairmanka ayaa soo gashay markay aragtay dharka Somi oo kala daadsan aad bay u naxday waxay xitaa ka shakiday in ninkeeda chairman Kang uu damac xun ka qabo gabadha sodohda u ah waxay ku canaanatay isagoo ku tilmaantay nin aan rajo lahayn kadib waxay heshay lambarka isbitaalka dadka maskaxda looga daweeyo si ay ugu dirto laakiin markii ay wici lahayd way labalabaysay Somi oo banaanka ka maqlaysay arrintaas ayaa rabtay inay ku riixdo go'aan sidaas darteed iyadoo ooyeysa ayay Haemin u sheegtay waxa dhacay Haemin aad ayuu u cadhooday wuxuu isla markiiba ku amray detective soo inuu aabihiis qaado xaaska chairmanka markaas mar dambe ma labalabayn waxay ogolaatay in chairman Kang loo diro xarunta dadka maskaxda laga daweeyo ugu dambeyn chairman Kang inkastoo uu maskax ahaan caafimaad qabo waxaa lagu diray xarunta waalida taasi waxay uga sii darnayd inuu ku dhaco cadaabta